السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركل السود وهذا أدي هذا ومهتسنتي. muuqaal kan waxaan rabaa inaan idinku wadaago xaalad cakiran oo ka taagan magaalada Minneapolis kadib markii saaka haddana ciidamada ICE nin kale ay ku toogteen isla markaana ay ku dileen ninkaasi oo magaciisa la shaaciyay iyo waliba da'diisa ciidamada ICE maxay u sababeynayaan toogashada ninkan mar kale maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka oo arintaasi ka hadlay maayarka magaalada oo ka hadlay iyo sidoo kalena taliyaha ciidamada booliska ee Minneapolis oo isaguna ka hadlay arimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idinla wadaago iyo xiisada ka taagan magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota iyo madaxda magaalada iyo kuwa gobolkaba oo dalbanaya mar kale ciidamada ICE inay isaga baxaan guud ahaan gobolkaasi waxaan ogeyn in ciidamada ICE wali howlgalo ballaaran ay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis dil kale ayaa saaka mar kale ciidamada ICE ay geysteen shalay waxaan ogeyn dad ka badan 15,000 oo qof inay isku soo baxeen mudaharaad nabdoon oo ay ku dalbanayaan ciidamada ICE inay isaga baxaan St. Paul iyo Minneapolis inay halkaasi ka sameeyeen xilli waliba qabow daran uu ka jiray shalay iyo maantaba magaalada ama magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo waliba Minneapolis haddaba saaka ayaa markay saacadu abaara ahayd 3 saac oo subaxnimo waxaa mar kale la soo tabiyay in toogasho ciidamada ICE ay ka geysteen wadada East 26 Avenue-ga iyo sidoo kalena Nicollet Avenue booliska taliyaha booliska Brian O'Hara ayaa waxa uu sheegay in booliska lagu soo wargeliyay 3 saac iyo 3 daqiiqo oo subaxnimo markii ahayd in toogasho halkaasi ka dhacday boolisku markay ilmaadeen waxay u yimaadeen qof qaangaar ah oo dhaawaca oo halkaasi yaala kadibna gargaar naftiisa lagu badbaadinayay ayaa loo fidiyay xarunta caafimaadka ee Medicare Hennepin Medical Center ayaana loogu qaaday ambulance halkaasi oo markii dambe uu ku geeriyooday waxaana uu sheegay in goobta markii dambe dad fara badan ay isugu soo xoomeen halkaasina ciidamada ICE iyo dadkii ay isku dhaceen loogana dhawaaqay unlawful assembly meesha in wax sharci aysan ka jirin waxaana dadka ugu baaqay inay isdajiyaan isla markaana ay ka fogaadaan goobtaasi dadkiina goobta laga waday waxa uu yiri waan ogahay in care ay jirto su'aalo fara badanna ay jiraan laakiin waxa uu yiri dadka waa uga digay in goobta dhimashadu ay ka dhacday yimaadaan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in ammaanka iyo kala dambeynta la ilaaliyo haddaba taliyaha booliska Brian O'Hara oo arimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri At approximately 9:03 a.m. this morning, Minneapolis police received a report of a shooting involving federal law enforcement in the area of East 26th Street and Nicollet Avenue on the south side of the city. Officers arrived and found an adult male with multiple gunshot wounds when they arrived. Life-saving aid was being rendered and he was transported by ambulance to Hennepin County Medical Center where he was later pronounced deceased. Officers arrived and found an adult male with multiple gunshot wounds when they arrived. Life-saving aid was being rendered and he was transported by ambulance to Hennepin County Medical Center where he was later pronounced deceased. Based on the information that we have, which is very limited, this is a 37-year-old white male who is a Minneapolis resident and we believe he is an American citizen. We have not been told any official reports of what has led up to the shooting, but we have seen the video that is circulating on social media. Our demand today is for those federal agencies that are operating in our city to do so with the same discipline, humanity, and integrity that effective law enforcement in this country demands. We urge everyone to remain peaceful. We recognize that there's a lot of anger and a lot of questions around what has happened, but we need people to remain peaceful. In the area, we have an unlawful assembly at this time. Minneapolis police have given multiple warnings for the crowd to disperse. We are asking for people to avoid the area and to leave if you are there. We ask everyone to remain calm and to please do not destroy our own city. ninka dhintay oo ciidamada ICE ay dileen ayaa magaciisa waxa lagu sheegay Alexis Jeffrey Brett oo 37 jir ah waxaan ogeyn sidoo kale 7 bishan January Renee Nicole Good in ciidamada ICE ay ku dileen isla magaalada Minneapolis 14 January na waxay dhaawaceen nin Venezuela ka soo jeedo oo Julio Cesar Sosa Salas la yiraahdo
oo isagana ay sheegeen in ay ceyrsanayeen maadaama uu sharci la'aan ahaa 2 qof oo ku soo baxdayna sidoo kale ay xireen isagana ay dhaawaceen marka waa qofkii saddexaad oo ciidamada ICE toogasho ay ugu geystaan magaalada Minneapolis ilaa iyo markii howlgallada ay ka bilaabeen maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo isagana wajigiisa care ay ka muuqatay ayaa waxa uu sheegay in uu arkay videogan aad arkaysaan waa sida ay wax u dhaceen waxa la arkayaa in 6 askari oo kamid ah ciidamada ICE ay la xarbinayaan ninkan geeriyooday kadibna dhulka ayay dhigeen iyagoo dhulka ku haya isaguna uu rafanayo la arkayo ayaa la maqlayaa rasaasta isla markaana halkaasi waxaa la sheegay in dhowr rasaasa lagu dhuftay ninkaasi sida dad goobta ka agdhawaa muuqaalkan ay duubeen aad ka arkaysaan marka dhowr xabadood ayaa ku dhacday ninkaasi waxaana dawladdu markii dambe ay soo bandhigtay ciidamada ICE bistooladan iyo 2 qasnadood oo ay sheegeen in ninkan uu watay taliyaha ciidamada xuduudaha ilaaliya ee hogaaminaya kamid ah hogaanka ciidamada howlgallada ka wada Minneapolis iyo St. Paul Gregory Bobino ayaa isaguna shir jaraa'id qabtay waxa uu sheegay in ciidamada ICE oo howlgal bartilmaameed ah oo nin sharci la'aan ah oo magaciisa uu ku sheegay Jose Walker Juma in uu ninkan dhimanaya markii dambe uu pistoolad wata uu ciidamada ku soo taagay markaas kadibna ay ciidamadu gacanta ay ku dhigeen waxaana uu sheegay ninkan inuu doonayo inuu xasuuqo ciidamada ICE ee goobtaasi joogay sidaas darteedna askari kamid ah ciidamada ICE ayaa isagoo nafsadiisa iyo nafsada ciidamada kala difaacaya oo risaas uu ku dhuftay ninkan sidaasina uu ku geeriyooday marka waxay leeyihiin ninkan isaga ayaa bistoolada nala soo aaday bistooladan ay soo bandhigeen oo 2 qasnadood wata waliba sida automatic u dhacda sida ay sheegeen ayaa waxa uu ninkaasi u watay waxana uu doonayay in ciidamada ICE ee howlgalka halkaasi ka waday waliba ninkaasi oo nin dambiilaha sharci la'aan bilaa leysin la'aan gawaari wado horeyna oo dambiye kala duwan lagu soo eeday ay doonayeen inay soo qabtaan haddaba waa kan Gregory Bobino oo isagu ka warbixinayay sidii saaka ay wax u dhaceen iyo sababta askarigaasi uu doogtay ninkaasi cadaanka ah oo lagu sheegay magaciisa Alex Jeffrey Brady at 9:05 a.m. Central Standard Time as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien, Jose Huerta Chuma. You can see this illegal alien on the screen to my left and right. That is Jose Huerta Chuma, whose criminal history includes domestic assault to intentionally inflict bodily harm, disorderly conduct, and driving without a valid license. During this operation, an individual approached U.S. Border Patrol agents with a 9mm semi-automatic handgun. The agents attempted to disarm the individual, but he violently resisted. Fearing for his life and the lives and safety of fellow officers, a Border Patrol agent fired defensive shots. Medics on the scene immediately delivered medical aid to the subject, but the subject was pronounced dead at the scene. The suspect also had 2 loaded magazines and no accessible ID. This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace oo isaguna shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in muddo ah inay ka hadlayeen haysashadan ciidamada ICE ee haystaan magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul in aysan ahayn arrin immigrationka loola jeedo laakiin ay tahay dhibaatooyin ay dadka shacabka ciidamada ICE ay u geysanayaan saakana mar kale dil kale ayay geysteen ayuu yiri oo ah nin muwaadin Mareykan ah oo degan waliba Minneapolis si sharciyana hubkiisa u watay waxa uu yiri in muddo ayaan maqlaynay Republicaanka oo noogu wacdinaya in qofku hubka inuu qaato ay xuquuqdiisa aysan ahayn laakiin ay waajib tahay waxana uu sheegay in hadda ninkaasi oo waxba galabsan ay dileen haddana waxa uu sidoo kale sheegay inaysan ogolaaneyn dawladda federaalka inay hogaamiso baaritaanka dilkan lagu sameynayo waxana uu sheegay in aanan lagu aamini karin in baaritaankan ay sameeyaan waxaan ognahay baaritaankii Renee Nicole Good in ay dawladda ama FBI-du ay la wareegtay oo maamulka gobolka loo diiday marka waxa uu yiri hadda ma ogolaan karno madaxweyne Trump ayaa baaq u diray gudoomiyaha gobolka waxana uu yiri waxaan ku leeyahay ciidamadan ka qaad
magaalooyinka Minneapolis iyo weliba St. Paul. Waxa uu dadka ugu baaqay inay isdejiyaan. Waxa uu sheegay anagu waxaan doonaynaa nabad, deganaasho iyo nolosheenu inay caadi ku soo laabato, laakiin waxa uu yiri iyagu waxa ay doonayaan qalalaaso, marka ma doonayno mana siin doono waxa ay doonayaan oo ah qalalaaso. waxa uu yiri in qalalaaso looga jawaabo ma ahan, dadkana waxa ugu baaqay inay isdejiyaan. waa kan gudoomiyaha gobolka Tim Walz oo arrimahaasi ka hadlay. Well, as I said last week, this federal occupation of Minnesota long ago stopped being a matter of immigration enforcement. It's a campaign of organized brutality against the people of our state. And today that campaign claimed another life. I've seen the videos from several angles, and it's sickening. But I have a strong statement here for our federal government. Minnesota's justice system will have the last word on this. It must have the last word. As I told the White House in no uncertain terms this morning, the federal government cannot be trusted to lead this investigation. The state will handle it, period. Let me say something else, and this is critically important. All of us understand what happened this morning and the tragedy of it, and my deepest sympathies to the family of a 37-year-old Minnesota resident, a lawful firearm concealed permit carrier, something that I've been lectured to by Republicans for decades. That is not only your right, it's your duty. We know that the potential to further inflame tensions is high, and to Minnesotans, there's a difference. We want calm and peace and normalcy back to our lives. They want chaos. We cannot and we will not give them what they want by meeting violence with violence. Minnesota and our local law enforcement, as you have seen, have done everything possible to de-escalate. Local media has reported extensively on the cooperation to de-escalate this situation. Donald Trump, I call on you once again, remove this force from Minnesota. They are sowing chaos and violence. sidoo kale senatarada laga soo doorto gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa iyaduna qoraalka barteeda X ku soo qortay qoraalkan, waxaana ay sheegtay in toogasho kale ciidamada ICE Minneapolis ay ka geysteen xubnaha Congress-ka ee Republican-kana ay ka aamusan yihiin maamulka Trump. waxaan leeyahay ay tiri ciidamada ICE ka soo qaad gobolka Minnesota. sidaasi ayaa sidoo kale iyaduna ay tiri marka haddana waa mar kale iyo toogasho kale oo ciidamada ICE ay ka geysteen magaalada Minneapolis. maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu muuqaal ka daawaday, isla markaana uu yahay muuqaal laga naxo. qof muwaadin Mareykan ayaa si xun loo dilay ayuu yiri. haddii arrintan ay sii socotana dad kale ayaa dhiman kara, kuwa kalena dhaawac halis ayaa soo gaari kara. marka waxa uu yiri arrintan waa arrin siyaasadeed iyo waliba arrin xisbi oo sheegay in aan loo baahnayn in ciidamadan halkan ay sii joogaan. waxaana ugu baaqay in ciidamada ICE ay isaga baxaan magaalada Minneapolis. dadkana waxa ugu baaqay in ay deganaasho muujiyaan, haddii ay mudaharaadayaanna ay si nabdoon ku mudaharaadaan. aad iyo aad u mahadsantiin. nabadgelyo.